Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada YouTube channelkeena waa walaasheen Raxmad Diamond. Maanta hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxa aan ka hadli doonaa bisha labaad ee uurka, marxaladda hooyada iyo mid uurjiifka ay marayaan. Waxaan horey uga soo hadlay bisha koowaad ee uurka. Bisha labaad waxa ay ka bilaabanaysaa asbuuca 5aad ilaa iyo asbuuca 8aad. Waxa aan kaloo ka hadli doonaa xaaladda ay hooyada la kulmayso bishaan, sidoo kale korinshaha uurjiifka bisha labaad meesha uu maraayo, xubnaha xilligan samaysmaayo. Waxaan kaloo ka hadli doonaa cunooyinka loo baahan yahay hooyada inay qaadato markii lagu jiro bisha labaad. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa fitamiinada loo baahan yahay inay isticmaasho. Haddii hooyada xilligan ay booqato dhakhtar, maxay u baahan tahay oo laga baarayaa, ama baaritaanada uu dhakhtarka u sameynayo maxay noqonayaan. Haddii aan ku bilaabo bisha labaad, waxaa samaysmaayo ama weli socdo samaysanka uurjiifka xubnihiisa. Xilligan waxaa samaysmaayo maskaxda, sidoo kale waxaa samaysmaayo qaab dhismeedka caloosha. Xilligan ilmaha ama uurjiifka caloosha ku jiro ma ahan bini'aadan qaabkiisa ma lahan, waa carijow. Waxaana bilaabmaya samaysanka lafaha. Markii lagu jiro bisha labaad ama asbuuca 5aad ilaa iyo asbuuca 8aad, hooyada ma dareemayso wax wadna garaaca, waayo waxaa weli gabagaba ah samaysanka wadna garaaca uurjiifka. Calaamadaha ee hooyada isku arkaysa markii lagu jiro bisha labaad ee uurka maxaa ka mid ah? Hooyada waxay isku arkaysaa morning sickness ama lalabo iyo matag. Morning sickness hooyada inay dareento ama xilligan inay hooyada lalabo dareento wax normal ah oo caadi ah. 95% hooyooyinku waa ay dareemaan markii laga reebo qaar yar. Waa ay ku kala duwan yihiin hooyooyinka qaabka ay u dareemayaan lalabada. Hooyooyinka qaar ayaa aad u mataga ilaa laga gaarayo bisha 4aad, halka hooyooyinka qaar ay dareemayaan kaliya lalabo. Waxaa kaloo jiro hooyooyin markay cuntooyinka qaar isticmaalaan ay dareemaan lalabo. Way ku kala duwan yihiin hooyooyinka. Calaamada labaad oo hooyada ay dareemayso markii lagu jiro xilligan waxay tahay daal aad u badan. Hooyada waxay dareemaysaa inay aad u daalan tahay oo waxay rabtaa inta badan in ay jiifto ama ay sariirta saarnaato. Hooyooyinku waxay dareemaan daal fara badan. Calaamada kale oo hooyada ay dareemayso markii lagu jiro bishan labaad waxaa ka mid ah bakoor ama heartburn. Hooyada waxay dareemaysaa laabjeex zaa'id ah oo too much ayay dareemaysaa. Waana wax normal ah oo hooyada intay uurka leedahay oo idil ayay dareentaa bakoorka zaa'idka ah. Calaamada kale oo hooyooyinka isku arkayaan waxaa waaye inay hooyooyinka ay dareemaan inay cuntooyinka qaar aysan rabin ama ay ku lalaboodaan. Xitaa waxaa dhacda inay aad ugu soo uraan cunto ay jecleed inay aad u nacdo. Waxaa kaloo jiro hooyooyin cagsigooda ah oo xilligan markii lagu jiro appetite zaa'id ah yeesho oo aad cuntada u cuna. Calaamada kale oo hooyooyinka ay isku arkayaan markii lagu jiro bisha labaad waxaa ka mid ah kaadi badan inay hooyadu isku aragto. Calaamada kale hooyada isku arkaysa waxaa waaye dabeecadeeda oo isbedbedesha. Ayadoo hadda faraxsan ayaa waxaa arkaysaa wax yar kadib iyadoo xanaaqsan. Hooyada moodkeeda oo isbedbedela. Waxay kaloo hooyada isku arkaysaa wadna garaac zaa'id ah, waayo xilligan markii lagu jiro jirka wuxuu soo deynayaa dhiig aad u fara badan. Dhiiggaas la soo deynaya ayaa wuxuu sababayaa in heartbeat-ka ama wadna garaaca hooyada inuu ziyaado. Cuntooyinka ay hooyada u baahan tahay markii lagu jiro xilligan maxaa ka mid ah? Ugu horeyn waxaa muhiim ah in hooyada ay isticmaasho cuntooyin ay aad iskaga bisleysay. Cuntada xilligan ay hooyada qaadanayso waxaa loo baahan yahay cunto ay aad u karkarisay inay noqoto, waayo haddii cuntada ay ceyriin tahay ama aan si fiican loo bisleynin saameyn ayay ku yeelanaysaa. Cuntooyinka koowaad oo hooyada xilligan markii lagu jiro ama bisha labaad muhiimka u ah waxaa waaye cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinka. Waxaa ka mid ah ukunta, caanaha, hilibka iyo wixii la mid ah. Dhammaan cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinka waa inay hooyada aad u isticmaasho, waayo xilligan waxaa socda samaysanka uurjiifka, lafihiisii, xubnihiisii oo idil. Wuxuuna isticmaalayaa borotiin aad u badan. Sidoo kale xilligan waxaa loo baahan yahay hooyada inay qaadato cuntooyinka ay ku badan yihiin calcium-ta, waayo waxay muhiim u yihiin shaqada wadnaha iyo neerfaha uurjiifka. Sidoo kale maadaama uu socdo samaysanka lafaha,
muhiim ayay u yihiin lafaha, ilkaha, murqaha dhammaan uurjiifka ayay caawinayaan marka lagu jiro xilligan. Hooyadu waa inay qaadato cuntooyinka ay calcium-ta ku badan tahay. Waxaa ka mid ah caanaha, yogurt-ka, looska, malayga iyo wixii la mid ah. Waxaa kaloo loo baahan yahay hooyada inay qaadato cuntooyinka ay ku badan yihiin folic acid. Folic acid wuxuu hooyada ka caawiyaa ama uurjiifka uu ka caawiyaa inuu ka hortago inuu ku imaado in asagoo ay furan tahay spinal cord-ka qayb ka mid ah uu dhasho. Cuntooyinka ay ku badan yahay folic acid waa inay hooyada qaadato. Waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran, waxaa kaloo ka mid ah avocado-da, sidoo kale liin macaanta. Waxaa kaloo muhiim ah hooyada inay qaadato cuntooyinka ay iron-ka ku badan yihiin, waayo waxay horumarinayaan ama kor u qaadayaan HB-ga. Sidoo kale waxay caawinayaan in balasentada ay gaarto dhiig ku filan. Balasentada waa meesha uurjiifka uu ka qaato cuntada. Waxay suurtagelinaysaa in uurjiifka uu helo dhiig ku filan. Sidoo kale hooyada waa inay qaadato cuntooyinka ay ku badan yihiin fiber-ka, waayo tan waxay ka hortagaysaa inay hooyada caloosheeda ay fadhiisato oo ay saxarada adkaato. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah fruit-ka, sidoo kale waxaa ka mid ah khudaarta noocyadeeda kala duwan. Waxaa kaloo ka mid ah raashinka dalka sida qamadiga iyo wixii la mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah boorashka. Haddii aan soo koobo cuntooyinka ay u baahan tahay hooyada inay isticmaasho markii lagu jiro bisha 2 ee uurka, hooyada waa inay isticmaasho cuntooyin caafimaad leh, kuwaas oo qayb ka qaadanaya korinshaha uurjiifkeeda, iyadana ay ka helayso energy ku filan iyo tabar. Cuntooyinkaas haddaa soo koobo waxaa ka mid ah ukunta, hilibka, caanaha, sidoo kale waxaa ka mid ah khudaarta noocyadeeda kala duwan, fruit-ka sida cambaha, liin macaanta, liin balbeelmada. Waxyaabahaas oo idil hooyadu way u fiican yihiin. Khudaarta kuweeda cagaaran sida ansalaatada, broccoli-ga iyo wixii la mid ah. Muhiimadu waa inay hooyada qaadato wax fitamiin leh, iskuna dheelitiran, iyadana ay energy ka helayso, uurjiifkeedana uu korinsho fiican ka helayo. Xilligan haddana aad ay muhiim ugu tahay uurjiifka, waayo waxaa socdo korinshihiisa ama samaysankiisa. Waa maxay cuntooyinka la rabo hooyada inay iska ilaaliso marka lagu jiro bisha 2? Qodobka koowaad oo hooyada iska ilaalinayso waa cuntooyinka aan sida fiican loo bisleynin. Cuntooyinka ceyriinka ah ama aan si fiican loo bisleynin uma fiicno hooyada xilligan marka lagu jiro. Sidoo kale hooyada uma fiicno kafeega badan ama qaxwada badan inay hooyada isticmaasho xilligan marka lagu jiro. Waxaa fiican inaysan maalinta 1 koob camal aysan ka badsanin, waayo iyadana uma fiicno, uurjiifkeedana ma u fiicno. Sidoo kale hooyada waa inay iska yareyso cuntooyinka qaar sida biisaha, beegarka iyo wixii la mid ah. Hooyadu waa inay iska yareyso qaadashada cuntooyinkaas inta ay uurka leedahay oo idil. Sidoo kale waxa ay dhaqaatiirta ku taliyaan inay hooyada iska ilaaliso marka lagu jiro xilligan fruit-ka ay ka mid yihiin babaayga ceyriinka ah ama babaayga kiisa cagaarka ah, sidoo kale cananaaska, waayo waxay dhaqaatiirtu sheegeen in ay keenaan ama ay fududeeyaan foosha contraction inay keenaan. Bisha 2 ee uurka waa maxay baaritaanada loo sameeyo hooyada booqashadeeda koowaad ee dhakhtarka? Waxaa loo yaqaanaa antenatal care. Waa care-ka la siiyo hooyada inta ay uurka leedahay oo idil. Marka koowaad ee hooyada booqato waa marka ay ugu badan tahay oo loo sameeyo baaritaan ama baaritaanka ugu dheer loo sameeyo. Baaritaanada la sameynayo waxaa ka mid ah in hooyada blood pressure-keeda la cabiro, sidoo kale blood test in loo sameeyo oo hooyada dhiig inta laga qaado baaritaano lagu sameeyo. Baaritaanada lagu sameynayo dhiiggaas hooyada laga qaado waxaa ka mid ah hooyada in laga baaro cudurrada faafa sida cudurrada ay u gudbin karto uurjiifkeeda. Waxaa ka mid ah cagaarshowga nooca loo yaqaano B. Waxaa kaloo ka mid ah HIV iyo wixii la mid ah. Sidoo kale hooyada dhiigga xilligan laga qaado waxaa laga baaraa HB-ga. Sababtoo ah haddii uu yaraado HB-ga hooyada xilliga ay uurka leedahay waxa ay saameynaysaa korinshaha uurjiifkeeda iyo nafaqada uu helayo oo idil. Waxaa kaloo la baarayaa ama baaritaanada lagu sameynayo hooyada waxaa ka mid ah in la fiiriyo blood group-keeda ama nooca dhiiggeeda waxa uu yahay, ma mid la heli karaa mise waa mid helitaankiisa uu adag yahay, sida A+ inuu yahay, O+ inuu yahay iyo inuu minus yahay.
Sidoo kale hooyada waxaa laga baarayaa urine ayaa laga qaadayaa ama kaadi. Kaadida waxyaabaha laga baarayo waxaa ka mid ah infection in uu jiro ayaa laga baarayaa. Sidoo kale borotiinka ayaana la fiirinayaa. Marka lagu jiro bisha labaad ee uurka, hooyada ma ogaan kartaa ama haddii ultrasound ay is saarto kombiyuutarka uurjiifka ma ay ogaan kartaa uurjiifkeeda nooca uu yahay inuu yahay wiil ama gabar. Maya, hooyada xilligan marka lagu jiro ma ogaan karto inay wiil wado iyo inay gabar wato. Xitaa hooyada ma dareemi karto dhaqaaqa uurjiifkeeda, waayo weli aad ayuu u yaryahay marka lagu jiro xilligan. Fitamiinada loo baahan yahay hooyada inay qaadato marka lagu jiro xilligan ama bisha labaad ee uurka maxaa ka mid ah. Hooyada waa inay isticmaasho fitamiinada loogu talagalay uurka, waayo xilligan muhiim ayay u yihiin. Waxaa socda samaysanka uurjiifka. Fitamiinka ugu muhiimsanna waxaa waaye folic acid ama vitamin B9. Folic acid wuxuu ka hortagaa in uurjiifka uu ku dhasho waxyaabo abnormalities ah. Sidoo kale hooyada xilligan waxaa muhiim u ah vitamin D ama fitamiinka qoraxda laga helo. Waxaa muhiim ah haddaysan hooyada qaadan karin asoo supplement ama kiniin oo diyaarsan waa inay hooyada isticmaasho cuntooyinka ay ku badan tahay kaalshiyamta. Waa maxay waxyaabaha la rabo inay sameyso hooyada ama talooyinka aan siin lahaa hooyo ku jirta bisha labaad ee uurka maxay yihiin? Qodobka koowaad, hooyadu waa inay ku dadaasho nasiinada. Xilligan marka lagu jiro bilaha ugu horeeya ee uurka, hooyadu waxay halis ugu jirtaa in ilmaheeda ay soo dilmaan. Haddii ay wax culus qaado, haddii ay socod fara badan ay sameyso, xitaa haddii ay daawo qaldan ay qaadato, waxaa laga yaabaa in uurjiifkeeda uu sababsado marka lagu jiro bilahan ugu horeeya ee uurka. Waa muhiim inay hooyada ku dadaasho nasiinada, inay nasiino fara badan ay sameyso, waxyaabaha culus qaadistiisana ay iska ilaaliso. Xilligan marka lagu jiro bisha labaad ee uurka waa inaadan isticmaalin wax daawo uusan dhakhtar kuu soo qorin, gaar ahaan daawooyinka qalajiyaha oo Soomaalideena ay aad u isticmaalaan. Hooyadu markii lagu jiro bisha labaad waa inaysan qaadanin wax daawo uusan dhakhtar u soo qorin. Antibioticska, daawooyinka malaariyada, dhammaan waxay saameeyaan uurjiifka. Hooyadu waa inay inta iska ilaalin karto iska ilaaliso daawooyin qaldan inay qaadato. Xitaa xanuun baabi'iyaha waa inay iska yareyso oo aysan badsanin. Talada kale ama qodobka kale oo hooyooyinka aan kula talinayo waxay tahay inay isticmaalaan biyo badan. Hooyada inay mar walba ku dadaasho inuu jirkeeda qoyanaado oo ay isticmaasho biyo badan. Maalintii 3 litir. Even xitaa waxaa laga yaabaa Soomaalideena inaanan biyo aad u caban, laakiin 8 galaas hooyada inay maalintii ay cabto ay aad ugu dadaasho. Qodobka kale oo aan hooyooyinka kula talinayo wuxuu yahay in cuntada aysan qaadan cuntooyin badan. Yacni halkii mar inaysan cunto badan aysan cunin. Cuntada waqtigeeda inay halkii mar cuntada ay qaadanayso inay yareyso. Laakiin haddii 3 waqti ay cunto qaadan jirtay inay tirada badiso oo 5 waqti ay ka dhigato. Halkii marna wax yar ay qaadato. Waxaan soo sheegay in xilligan hooyada ay dareemeyso lalabo iyo matag. Haddii cunto badan ay qaadato, waxaa laga yaabaa inay soo celiso. Waa muhiim inaad iska yareyso tirada cuntada oo cunto badan aadan isticmaalin. Waxaa kaloo iska ilaalisaa cuntooyinka ku dhibayaan. Hooyooyinka qaar waxaa laga yaabaa inuu hor u keeno inay basbaas ay cunaan. Haddii aad aragtid inuu basbaaska ku dhibayo iska yaree ama ha isticmaalin. Sidoo kale cuntooyinka xawaajiyaasha leh, bariiska xawaajiga ku badan yahay oo kale waxaa laga yaabaa inuu ku dhibayo oo lalabada kugu badinayo. Waxaa laga yaabaa markaa cuntada karinayso basashaas kuu soo carfeyso inay wareer iyo dawakhaad kugu keento. Mar walba ogaaw cuntada ku dhibayso kadibna iska ilaali. Mar walba waxaa ku dadaashaa inuu HB-gaaga uu normal ahaado. Tan waxay kaa caawinaysaa inaad ka badbaado in hadhow markaad foolanayso dhiig lagugu shubo. Mar walba waxaa muhiim ah inaad la socotid cabirka HB-gaaga oo markaa wax yar joogtidba aad check up ku sameysid. Sidoo kalena aad qaadatid cuntooyinka iron-ta kor u qaado sida liin macaanta, liin balbeelmada iyo wixii la mid ah. Even xitaa khudaarta cagaaran ee ansalaatada ugu horeyso. Haddii aad halkan soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Waxaa inoo balana muuqaalkan muuqaalka xigo.
Waxaan Ilaahay ka baryayaa hooyo walba oo uur leh inuu u fududeeyo, kuwa xaamilada inuu Ilaahay u fududeeyo, kuwa aan awlaada haysanin awlaad baari ah oo wanaagsan inuu Ilaahay ku irsaaqo.